munaasabad ku saabsan hal abuurka qoraalka dhalinyarada oo lagu qabtay jaamacadda ummadda ayaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhibaatada tahriibka uu leeyahay. warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Axmed Kulmiye. maxamed saalax maare waa hal abuur daayir oo waqti badan ku bixiyay inuu soo saaro buugga mugdiga nolosha oo mid ka hadlaya dhibaatooyinka ay la kulmaan hooyooyinkii dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta badan ku nafaayay xeebaha iyo saxaraha ay ku tahriibayaan taasoo murugo iyo mugdi weyn ku ah nolosha waalidiin badan oo hanti badan ku bixiya in ubadkooda ka bixiyaan lacagaha madax furashada waxaana lagu qabtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. martidii lagu casuumay bandhiga buugga mugdiga nolosha ayaa si aad ugu riyaaqay qoysooyinka wax xambaarsan yahay buugga ayagoona tilmaamay in muhiim ay tahay in lagu dadaalo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka lagala kulmo mugdiga nolosha. maxamed saalax maare qoraaga buugga mugdiga nolosha oo horeen ka hadlay madasha lagu soo bandhigayay buugga ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay inuu qoro buuggan ka hadlaya mugdiga nolosha iyo goorta ay ku dhalatay. buugga mugdiga noloshu wuxuu ka hadlayaa laba ujeedo saynu sheegnay. labada ujeedana waxay tahay hooyada iyo tahriibta. maanso buuggan ku jirtaan damca inaan ugu magac daro markii hore oo la yiraahdo xabsi tahriib. xabsiga tahriibtu leedahay cidda gasho waynu ognahay, intaan ogeyna waxaan leeyahay hooyada weeyaan xabsiga qofka gala. ujeedka noocaasa buuggani ka sheekeynaya. waxaa ku qoran 7 qiso oo aan ka ururiyay hooyooyin danyara oo ubadkoodii ku dhiiradeen inay tahriibaan ama ay badda ku dhacaan dhibaatooyinkii ay kala kulmeen. awood umadi leedahay waa dhalinyaro, intan oo maanta fadhida waa dhalinyaro. waxa aan mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin u casumi weynay waxay yihiin shaqo kuma leh mana khusayso arrintan. waxa aanu 700 invitation-ka u daabacnay oo aanu qof kasta halka uu doonayo ugu gaarsiinaynay waxay ahayd hooyada danyarta inaan u heelino. waxay ahayd hooyada danyarta inaan ugu heelino qalinkayaga, qoraalkayaga, hadalkayaga, hal abuurkayaga iyo wixii kale aan awoodin. Muna Xasan Jimcaale gudoomiyaha midowga ururada dhalinyarada oo ayana ka hadashay madasha munaasabada lagu soo bandhigayay buugga mugdiga nolosha ayaa sheegtay inay xanuun ay leedahay in qofka uu ka tahriibo dalkiisa isla markaana ka sii xanuun badan tahay in la dhibaateeyo hooyada. guuleysanay hadiiba dhalinyaradu ay dareemayaan xanuunka uu leeyahay tahriibka, xanuunka uu leeyahay hooyada in la dhibaateeyo, xanuunka ay leedahay wadankaada aad muhaajir ka noqoto wadan kale aad muhaajir. runtii khibrad badan aan u leeyahay waqtigaan ii saamaxayna inaan idinla wadaago qofka inuu tahriibo wadan islaameed tago meel uusan lahayn iyo ogeyn ku af ahayn ku dhaqan ahayn ogeyn waxa uu la kulmaayo uu la kulmo waxay noo tahay xaalad kaleenta. ani runtii dareen gooniyo ay siinaysaa inaan arko nin dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro ee tahriibtay ee wadankeedii ka haajirtay quruxda iyo haybada dalka kasta uu leeyahay dadalaalka arkayna waa waxay ku xiran tahay dhalinyarada dalkaas. gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka gobolka Banaadir Cabdullaahi Cabdiraxmaan Amiir ayaa sheegay in dhalinyarada ay qayb ka qaadan karaan dhismaha iyo horumarinta dalka. waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee runtii wax bartay inaanu u istaagno isdhexgalka bulshada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. qof walba oo halkan fadhiya waxaa looga baahan yahay inuu qalbigiisa geliyo walaalka degan Raas Caseer iyo kan degan maxaa ahaytood magaalada Muqdisho inaanu nahay walaalo, inaanu lahayn xuduud, inaanu lahayn ina adeersi ee aan nahay walaalo Soomaaliyeed, walaalo maxaa ahaytood dhiigga iyo dhalashaduba wadaago. dalba waxaa qayb ka qaata dhalinyarada si maskaxiyan iyo wacyigelin bulsho. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.